waxaa saaka kulan ku yeelanaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug xarunta shir kale oo baarlamaanku si ku meel gaar ugu shaqeynaya ay kulan ku yeelanayaan waxaana kulankooda inta badan maanta ay uga hadlayaan amaba lagu dooranayaa guddi doorasho oo ka shaqeeya doorashada madaxweynaha iyo sidoo kaleeto ku-xigeenka galmudug iyadoona kulamo xoog leh ay baarlamaanka galmudug ay ka wadeen maalmihii ugu dambeeyay dhuusamareeb oo intooda badan ku saabsanaa doorashada galmudug maadaama wareegii ama wejigii koowaad laga soo gudbay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee galmudug la doortay ku-xigeenadooda la doortay waxa ay saakaba qorshuu yahaba inay doortaan guddi doorasho oo ka shaqeeya doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kaleeto arrimaha doorashooyinka oo dhan kulanka hadda ayuu bilaabo rabaa xildhibaanada hoolka ayay markaas iyagu kusii qulqulayaan iyagoo doonaya inay maanta fadhiistaan dabeedna ay guddigaasi soo saaraan sida qorshuu yahay haddaana waxba isbedelin sidaas waxaa ii xaqiijiyey qaar ka mid ah xildhibaanada cusub baarlamaanka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal waxa uu waday shalay ilaa xalay kulamo kala duwan uu la yeelanayay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee galmudug iyagoo inta badan uu kala hadlayay sida doorashada lagu qaban karo iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka cabanayaan musharaxiinta inuu ogaado oo u howlgalo dabeedna waxa ay sheegeen ama ay ka codsadeenba in doorashada dib loo dhigo muddo asbuuc ama 2 asbuuc ah maadaama hadda guddi doorasho la qabanayo siday wax isku qaban doonaan hadda cid garanaysaa ma jirto laakiin saaka qorshuhu waxa uu yahay guddi doorasho in la sameeyo waayahay tooxow sida kale magaalada dhuusamareeb waa sidee xaaladeeda maxaa dhaqdhaqaaqa oo ka jira marka laga tago ragga u tartamaya kuraasta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka yaa kale oo magaalada ku biiray oo mas-uuliyiina oo tegey mise dadka quuldaraynaya arrinta siyaasadda galmudug oo keliya ayaa ku sugan dhuusamareeb magaaladan waxaa ku sugan mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka socday sidoo kaleeto musharaxiinta oo iyagu gebi ahaanba halkan jooga madaxweynaha noqotay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenno maanta ayaa musharaxiin kale oo iyaguna soo degayaan oo madaxweyne ku-xigeenno ah waxaana ay doonayaan inay u tartamaan xilka ay markaas iyagu isku soo sharaxayaan hadday noqon lahayd inay madaxweyne noqotay sidoo kale hadday noqon lahayd inay madaxweyne ku-xigeenda ay noqoto dadka halkan jooga ee madaxweyne ku-xigeennimada isu sharaxay waxaa ka mid ah haweeney waxaana ay noqotay hadalaynta ugu ballaaran ee laga hadalhayo deegaanada galmudug maadaama haweenku iyagu baarlamaanka kaalinta ama guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ay ku guuleystaan haddana iyagu ay doonayaan inay isku sharaxaan kursiga madaxweyne ku-xigeenka galmudug hadalaynta ugu ballaaran ee ka jirta deegaanada galmudug ee la hadalhayo maadaama habluhu ay markaa iyagu ku yaraayeen xilalka inay ka qabtaan galmudug ayaa haddana waxay noqotay mid si aada dadku ay isla dhex maraan musharaxiintu magaalada ayay ku sugan yihiin kulamo kala duwan ay la sameynayeen xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug iyagoo ka dalbanaya in codadkooda ay markaasi iyagu ay ku caawiyaan si ay wax u qabtaan oo sida iyagu ay hadalka u dhigeen ama ay sheegeen magaaladana kulamo ayaa weli ka soconaya dhinaca dowladda iyo sidoo kale dhinaca musharaxiintaba ah waxaana jawigu yahay mid degan amnigana ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa adkeeyey waxaana la filayaa guddiga doorasho marka la qabto in dhuusamareeb ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha galmudug iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waayahay tooxow dadka qaar ee dhuusamareeb waxa ay noo sheegeen in magaalada ay ku soo farabateen dadka sameynaya ololaha doorashada oo markaasi abaabulan oo doorashadaasi ka qaybgelaya ama u ah dadkaasi ololeyaal iyo dad badan oo magaalada dhuusamareeb ku jabay oo tegey maciishada ayaa laleeyahay way isbedeshay dhuusamareeb oo sare ayay u kacday guryaha kiradooduna way sare kaceen iyo hoteelada arrinta iyada ah maxaa ka jira waa mahadsan tahay waa sax sidaa sheegtay dad badan waa joogaan oo musharaxiinta u ololeynaya oo markaasi iyagu u gobol xaaraya sidii lagu dooran lahaa hadda musharaxa iyagu markaasi ay la socdaan wax walba halkan ka jirana way isbedeleen oo qaali bay noqdeen ama hotel ha noqoto ama guryaha ha noqdaan hoteelada qaarkood xitaa waxaa laii sheegayay amaba aan arkay ama maqlaba in maalinkii $100 lagu jiifto marka waxaa keenaysaa dhaqdhaqaaqa magaalada ka jira iyo sidoo kaleeto sida ay wax u socdaan maadaama meeshan ay iska ahayd iyadu meel dagaalo sokeeyey sidoo kale kuwa siyaasadaysanba ay ragaadiyeen
laakiin hadda waxay u muuqataa mid dhabihii horumarka cagta saartay oo dad badan oo reer galmudug oo kasoo jeeday galmudug ay ku sugan yihiin, magaaladuna ay dad dartiis la circirayso, ciidamaduna ay sugayaan dadkaasi mas-uuliya amnigooda maadaama halkan dadkoo dhan isugu yimaadeen si dhibaata aysan u dhicinin. marka wax walba way isbedeleen, waxaana la filayaa in doorashadu dhacdo kadibna madaxweynaha guuleysta la arko. dadkii lagu yaqiinay inay muqdisho arrimaha siyaasadda ay ka shaqeeyaan ayaa la leeyahay intooda badan waxay joogaan galmudug. ma jiraa dhaqdhaqaaqa noocaasa inaad aragteen oo dadkii xamar joogi jiray inay aadeen dhinaca galmudug oo dhuusamareeb lagu arkayo, gaar ahaan kuwa u shaqeeya hay-adaha dowladda? waa sax, waa kolley dad badan way joogaan halkan oo gebi ahaanba markaad fiiriso waxaad is leedahay dadkii siyaasadda caanka ka ahaa ee muqdisho ku sugnaa gebi ahaantoodba midba kama harin ayaad is leedahay, oo magaalada ayay joogaan maadaama halkan maamul laga dhisayo. maamulkana xaaladiisa oo aad ka warhaysayo waxa weeye sidii loo asaaso ama cadaalad lagu soo asaasay, waxaa iska jira khilaafyo kala duwan oo ragaadiyey. inta badanna waxa weye hore u socod iyo sidoo kale waxqabad lagama baranin, laakiin hadda waxaa dadku inta badan ay rajo ka muujinayaan in maamulka halkan dowladda ay ku dhisayso laga yaabo in wax laga qabato oo wax qabto, maadaama galmudug hadeertaan beelihii oo dhan ay ku sugan yihiin dhuusamareeb, ayna doonayaan in maamul mid ay helaan si meelaha ay kasoo jeedaan waxqabad wanaagsan loogu qabto. dad badan oo muqdisho joogay oo arrimaha siyaasadda iyo sidoo kaleeto u dhuundaloolay ayaa hadda waxa ay magaalada ka wadaan loolan xoog leh oo ay ku doonayaan hadba midkii musharaxa ay wataan inay kusoo saaraan. weli fari kama qodna, laakiin loolanka iyo sidoo kaleeto wadahadalka xildhibaanada lala sameynayo ee ku aadan qofka markaas ay doonayaan in la doorto ayaa ka socda magaalada. magaalada jawgeeduna waa iska degan yahay. diyaar garowga doorashada iyo sidoo kale cidda guuleysata ayaa dadka reer dhuusamareeb iyo guud ahaanba galmudug oo dhan ay sugayaan.